وعنا وناكسنا قيارتها ودان ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamij la yaab leh nin si xirfadaysan u dhacay lacag ka badan 39 milyan oo ay leeyihiin dad Soomaali ah kaas oo magac wadaadnimo lacagaha kaga soo aruuriyay dadkan Soomaaliyeed isla markaana uu u sheegay in lacagahan ay u dhalay doonaan lacag kale oo tiro badan haddaba qaabka ninkan lacagaha uu dhacay waliba qaabka lacagahaas uu farsameeyay oo ah qaab la yaab leh ayaan idin soo gudbin doonaa iyo codad ku saabsan dadka lacagaha laga dhacay qaarkood oo ka cabanaya waqtigan lacagihii laga dhacay qaabka lacagaha naaga u badan marka naas oo iibad say ku keent say ku soo shaqeys yaa ilaahay ogyahay ilma agoon lacag qol milyan lacag ka badan oo dhacay nin lagu magacaabo Cabdullaahi Maxamed Cali oo loo yaqaan Kaariko waxa la sheegay qayb kamid ah lacagtaasi inuu dhacay isla markaana lacagaha uu ka dhacay siyaasiyiin xilal ka hayso gudaha dalka iyo waliba qaar hore xilal ugu soo qabtay Soomaaliya Cabdullaahi Kaariko wuxuu madax ka ahaa company lagu magacaabo Malin Group kaas oo hadda lagu kala tagay isla markaana lacagtiisa ay dhaceen asiga iyo shakhsi kale oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Cilmi kaas oo lacagahaas ka soo aruuriyay dad Soomaaliyeed oo ku sugan qaaradda Yurub Mareykanka wadamada Carbeed sida Sacuudiga iyo Soomaaliya gudihiisa Maxamed Xasan Cilmi waxa la sheegay in lacagtaasi 39 milyan ah uu farsameeyay isla markaana uu ka dhistay ama uu ku iibsaday dhul kala duwan oo ka tirsan ama ku yaal dalal kala duwan oo caalamka hadaba xog ku saabsan waa kuma Maxamed Xasan Cilmiga lacagaha 39 milyan ka dhacay dadka Soomaaliyeed ee hadda qaarkood ay cabanayaan oo aan idin soo gudbin doono cabashada dadkaasi oo qaarkood codadkooda aan helay iyo xogta Maxamed iyo lacagahaasi halka uu geeyay Maxamed Xasan Cilmi waa 60 sano jir ku nool dalka Ingiriiska waxaana la sheegay inuu haysto baasaboorka dalka Denmark waxaana uu ku noolaa Ingiriiska gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo Wembley halkaas oo maqaayad uu ku lahaa 20 kun oo pound soo haysta ayaa 2014 wuxuu u soo hayaamay dalka Kenya halkaasina waxa la sheegay inuu ka dagay dabaq lagu magacaabo Amano oo ku yaal xaafadda Islii waxaana halkaasi uu ka furtay laba xafiis waxaana la sheegay xafiisyadaasi in ay hoostagi jireen company-gan Malin ee Cabdullaahi Kaariko madaxda uu ka ahaa waxaana Maxamed Xasan Cilmi dabadeed lacaga uu ka soo aruuriyay dad kala duwan oo ku sugan qaaradda Yurub Mareykanka Sacuudiga iyo sidoo kale qaaradda Afrika dad ku sugan oo Soomaaliyeed kuwaas oo hadda la sheegay qaarkood inay naqdeen dad ceer ah oo aan waxba haysanin kadib markii 39 milyan ee uu ka aruuriyay uu la guuray Maxamed Xasan Cilmi uuna ku gatay dhulal kala duwan oo ka gatay meelo kala duwan oo ka tirsan wadamada caalamka ninkan aan ka sheekeynayno Maxamed Xasan Cilmi ayaa farsamo aad u cajiib ah isticmaalay waxaana la sheegay xilliyada lacagaha uu aruurinayay in dadku u sheegi jiray in lacagahooda faa'iido badan ay u dhalayso isla markaana waxa 2014 ilaa waqtigan lacagihii la aruuriyay inta badan dadka aysan kala bixin akoonada waxaana la sheegay in lacagahaasi ay dadka ay dalbanayeen in lacagahooda faa'iidadooda lagu kordhiyo lacagihii hore ay dhigteen taas oo keentay in lacagaha ay gaarto ilaa 39 milyan waxaana aakhirkii la waayay ninka lagu magacaabo Cabdullaahi Maxamed Cali Kaariko kaas oo ay og yihiin halka uu joogo Maxamed Xasan Cilmi oo dadka shacabka lacagaha uu ka soo aruuriyay Master Cilmi ayaa la sheegay in ay dalaaliin ay u ahaayeen shakhsiyaad lagu magacaabo Cabdiqani Anos waxa la siin jiray 10% lacagaha uu ka soo aruuriyay dadka shacabka waxaana sidoo kale arintan ku wehelinayay nin kale oo lagu magacaabo Guuleed Kuulow labadoodana waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi halka Maxamed Xasan Cilmina wali uu ku sugan yahay Nairobi waxaana dadka lacagaha uu ka aruuriyay qaarkood wali uu ku maaweelinaya group lagu magacaabo Horseed Group halkaasi oo madax uu kaga dhigay ninkii dalaalka uu ahaa ee lagu magacaabi jiray Cabdiqani Anos Maxamed Xasan Cilmi ayaa lacagaha inta badan waxa la sheegay inuu gashtay dhulal sida aan hore idinku soo sheegnay waxaana arintan ka cabanaya dad kala duwan waan u soo naqanayaa informationka ama xogta Maxamed Xasan Cilmi laakiin aan dhageysano gabar kamid ah guddi loo xil saaray inay wax ka ogaato lacagaha iyo halka ay ku baxeen oo sheegaysa in 39 milyan Maxamed Xasan Cilmi uu aruuriyay haddana dadka uu maaweelinayo Soomaali shimii horumar ay gaarayaan ina isticmaal horumar noo ma ceeb waxaan oo kale anaga hadii wixii Maxamed Xasan inta lacag aniga u dhiibanay marka la xisaabay wuxuu noo sheegay naay kaligood inay yihiin 500 nimanka 180 iyo 170 wixii yihiin naaga u badan marka naag oo iibad say ku keent say ku soo shaqeys yaa ilaahay ogyahay ilma agoon lacagtooda ku jira dad masaakiin oo fuqaraa xaaladooda xaal meel kasta ay joogaan yaa in lacagtaasi
ولو ما طلعتي ويدونتي هل مر له فجأة كو إماد أنا خارع دونتي خارع لهايا وحلا كستي mid ka mid ah dadka waxgaradka ah ee lacagta laga dhacay ayaa sheegaya in maxamed xasan cilmi waxa uu sameeyay aysan ahayn tuugnimo laakiin ay tahay doqonnimo wuxuuna tilmaamayaa in maxamed lacagaha uu og yahay isla markaana lacagaha uu haysto asoo isla markaasi shaki geliyay in cabdullaahi kaariko la la'yahay laakiin ay is og yihiin maxamed xasan cilmi sida uu sheegayo mid ka mid ah dadka waxgaradka ee lacagaha laga dhacay iyo hunguri iyo maaragtay iyo hawo wala isdhici jiray dadka si wax loo dhaco waa Soomaalidu geeli kala dhici jirtay 100 sano 200 sano ka hor la kala dhici jiray laakiin qaabkan doqonnimada kale ma ahan dhac in arki jirna ma waxaan rabaa marka inaan idaaraa awalan horta Ilaahay ka cabsada isdajiya oo kalsooni iyo dadnimo iyo islaamnimo iyo sharaf muujiya xoolihiinna raasada sharafta iyo dadnimada iyo islaamnimada iyo qofku waxa la rabaa inuu san bini aadanka inuu ka nabad galaan laakiin hadii lagu xadgudbo oo la isku dayo in xoolahaaga la dhaco inaad difaacato xaqaad u leedahay xoolihiina raasada xoolihiina bangiyay ku jiraan bangiyay ninkan maxamed xasan cilmi ah ee lacagaha ka dhacay dadka Soomaaliyeed oo ay u badan yihiin hooyooyin danyar ah ayaa wali wuxuu joogaa magaalada Nairobi waxaana la sheegay lacagaha qaarkood ilaa 2 milyan inuu u aliyay ama uu siiyay dad uu ka baqayay isla markaana uu arkayay inay yihiin dad halis ah noloshiisana qatar gelin karta laakiin maxamed xasan cilmi qudhiis wuxuu sheegayaa xilligii ay soo baxday ama uu soo baxay wararka sheegaya in lacagihii ku jiray maalin group la dhacay wuxuu afkiisa ka qirayaa sida aad maqli doontaan in lacagaha inta badan la eemiyay oo ay yaalaan isla markaana waxa qasaare ay yihiin lacag yar oo kali ah sida uu sheegayo ninkan tuuga ah ee lacagaha ka dhacay 39 milyan ummad Soomaaliyeed hadaba aan dhageysano maxamed xasan cilmi oo afkiisa ka qiraya in faa'iidada iyo waliba lacagihii ku jiray maalin group inta badan la hayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلباد واحد لهالله ومحمد حسن waxaan halkaan rabaa inaan marlabaad idinla wadaago kulan saakay aan galnay 9 subaxnimo oo aan hadda ka soo baxnay wixii ka soo baxay kulankaas ay isugu yimaadeen dhammaan mas'uuliyiinta ka tirsan maalin group halkaas oo looga wada hadlay yacni dhacdadii dhacday iyo wixii laga soo bin lahaa awalan waxaan ilaahay ugu barinay ninkii naga maqnaa inuu ilaahay horta si degdeg ku soo celiyo halkaas waa looga duceeyay midda labaad waxaan u yeernoo kale halkan oo yimid dhammaan dhalinyaradii subaxa khamiista ah inaan yacni 5 saac oo yacni noocaan oo kale maxay waan hubaa in maalin maalmaha ka mid ah oo dhow in maxamed xasan cilmi la horkeeni doono sharciga isla markaana la weydiin doono lacagaha 39 milyan ee uu ka dhacay dadka Soomaaliyeed laakiin waxa aniga sida weyn aan ula yaabay isla markaana idamqiyo waxay tahay in hooyo Soomaaliyeed oo qadaamad ka ama ka shaqeysa dalka Sacuudiga xilli cumro uu aaday maxamed xasan cilmi uu ka soo qaaday lacag tiro badan oo waqti dhow ah waxaana lacagahaasi uu sheegay in faa'iido badan ay u dhalayso haddaba hooyadan oo aan si weyn aan kaga xumaaday isla markaana idamqirisay dhammaanteen aan wada maqalno waxa ay ka sheegayso ninkan tuuga ah ee lagu magacaabo maxamed xasan cilmi ee lacagaha 39 milyan ka dhacay dadka Soomaaliyeed هالاي والله ما سمعلهن أساسا ما نقول شيكين هدوس إمقلة محمد حسن والله بلا ما أنتو إيمان يقولي مالن خذوا مالن ويسوا أفوري يا أسوا مكة كإيمان وحدا لحدا سوسوما مركزا خذا لنكو إيمانا يوده إن شاء الله ماهي وما شاء الله نودعي وحنا واكل عكا سيد إنتاسان كشخينا سانا كشخينا حتى لعكا ماهي لقصو سارة وشاك وهبال إن محمد حسن علمي للا حسابتمي دونا أدونك آخرنا تي ربي يسوغيسو لكن وحا هدا عن إديسو قدبنا يحكو سابسان محمد حسن علمي إن لعقاها سيهالك وقيي دالك اسكو تاقي إمارات كعربتا وحو محمد حسن علمي وكئيب سدي قوريو آد أترى بدن وحانا لا شاقي إلا 20 قوري أو مدكيبا وجوا 500 كن إن هالكاسي وكئيب
iibsaday waxaana maxamed xasan cilmi agosto 2019 uu booqday isku tagga imaaraadka carabta halkaasi uu ku soo booqday ama uu soo indheeyay guryaha halkaasi uu ka iibsaday oo uu ku qortay dad ay isku heeb ay yihiin sidoo kale magaalada Istanbul ayaa maxamed wuxuu ka iibsaday guryo aad u tiro badan waxaana guryahaasi uu ku qortay dad ay isku heeb ay yihiin waxaana isla agosto 2019 socdaal uu ku yimid magaalada Istanbul si uu u soo arko lacagihii uu dhacay guriyihii uu ku iibsaday uu ka gatay dalka Turkiga arrinta la yaab kale waxay tahay in isku tagay imaaraadka carabta uu ka gatay laba shirkadood asigii sidoo kale shakhsiyaad kale oo hindi ah ama warshadood kuwaas oo shaqaynaya isla markaana ku yaal gudaha isku tagay imaaraadka carabta Soomaaliya meelo kala duwan oo magaalada Muqdisho ay guryo ka iibsaday maxamed xasan cilmi iyo waliba deegaano kale oo Soomaalida ay degto sida isgoodka kiiloomitir 4 degmada Madiina iyo waliba deegaano kale oo magaalada Muqdisho dhaca sida suuqa Bakaaraha dabaq weyn ayaa wuxuu ka iibsaday agaarka isgoyska ama raadha agaarka garoonka aadan cadde halkaasina waxa la sheegay in dabaq weyn uu ka dhistay maxamed xasan cilmi Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi iyo Mombasa iyo sidoo kale dalka Tanzania waxa la sheegay in maxamed xasan cilmi uu ka iibsaday xarumo ganacsi iyo waliba shirkado ganacsi inuu ka sameystay kuwaas uu ka sameystay lacagihii uu ka dhacay dadka Soomaaliyeed oo gaaraya in ka badan 39 milyan hadaba la soco qaybtii labaad ninkan tuugay casriyeysan ee 39 milyan ka dhacay dad Soomaaliyeed iyo waliba xog ku saabsan lacagihiisa meelaha sida rasmiga ay u kala yaalaan iyo xogta maxamed xasan cilmi waxa uu ku keenay in dad Soomaaliyeed 39 milyan uu ka dhaco haddana uu ku maaweeriyo group lagu magacaabo Horseed kaas oo WhatsApp-ka uu ka sameeyay uuna doonayo mar labaad inuu dadka uu ku dhaco